waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo dhacdada foosha xun leh dareen ka qaadatay oo ka hadashay oo taageertay iyagana waynu mahadnaqaynaa cadaalad darrada aynu la dagaalamayna waxa weeye oo runtii xanuunka ugu badan u saameynaya sumcad xumo ku timi dawladdii aynu doorannay ee Soomaaliland aynu u hanka weynayn aynu u dhiibanay mas'uuliyadda magac xumaday maanta soo hooysay in dhexdeeda ay Djibouti ka kalluumaysato waa nasiib darro inagu dhacday Djibouti waa cadow ugu weyn Soomaaliland madaxweynaha Djibouti daraata wuxuu tagay xamar buu ka digay inagu inta is jirno markuu maanta dhexdeena ka kalluumaysanayo oo hal doorkeena ka ugaarsanayo taasi waxay mudarra iyo hoos u dhac iyo baaba ku tahay xukuumadeeni iyo dawladeeni Soomaaliland bay ku tahay runtii shalay dad iyo duuyo waxaynu u rognay aynu ka dagaalamin cadaalad darro yahay madaxweynaha maanta inoogu sareeya ee xilka inoo haya inuu xilka u dhiibanay ee Muuse Biixi Cabdi fooqa Qadar Ayuube markuu ku jiray uu lahaa ku rida ee maatida dabka lagu guray maxaynu dagaalamin cadaalad baynu dagaalamin waxaynu ka dagaalamin xabaal wadayada maanta argeysa koonaheeda laga qoday dadkii cagafta lagu aasiyay aynu ka dagaalamin kuwii xeebtii liida lagu laayay ee saqada dhexe loo soo dhacay ee la gowrgowracay aynu ka dagaalamin maanta haddaynu tii ku kacno oo hal doorkii Soomaaliland la yiraahdo Hargeysa laga qaadanaya Djibouti baa loo gacan gelinaya waa nasiib darro inagu dhacday runtii oo aan laga soo waakan karin waa laga hadlay oo dareenka waa la muujiyay wuxuu baan ku soo gabagabeynaya laba shay mid waa fariin aan u diray madaxweynaha nama khusayso cid kale oo war laga sugaa waddankan wuxuu ku badbaadayaa wixii aad ka yeesho arinta adigu aad ka soo saarto ayuu ku badbaadayaa xumaan iyo samaan labadaba taasay dadkan wax ku qaadanayaan mid kalena waxaan leeyahay waxa nasiib darro ah dawladda dhan ee dhisan ee shuruucdeedii iyo hay'adihii kala duwanaa iyo madaxdeedii ee leeyilaba inaanu agaasimayaala ayaa soo saxeexay in Axmed Cismaan Geela la qabto oo Hargeysa dhexdeeda waxay u dhacay waxana dhibaya oo runtii dhibaato kasta naga daran magac xumada Soomaaliland ku soo hootay madaxweynaha waxaan ka sugaynaa wixii uu ka soo saaro